inta kale aad loo hadal hayay ha noqoto saxaafadda Somaliland saxaafadda kale Soomaalida ta adduunka shacabka laftiisa meel kasto ay joogan gudaha iyo dibad jaaliyadaha Somaliland qurbaha waa arinta heshiiska Berbera arintaas culays ayay keentay maxaa arintaas u gaar ah waxa weeye inta adduunka Ilaahay reer Somaliland moojaane wax meheradooda tacaadiya lama arag waa gartay waxaan dadka ka doonahay بعضهم سوبر ماركت هيسو سوبر ماركت تعادين سوف الحومها واقرتي سعد سو راعي مايو واقرتي horta waxaan waa anaga taayadii gudaha iyo isku xumee beedii hebel ku xumee واقرتي caada anaga noo dhaqana واقرتي laakiin dekada Berbera cid ka hadli karta horta waa Somaliland garoonkan laga hadlayaa waa garoonkii ninkii loo jeeday ina macalin dawladda siyaad bare u joogay Berbera 500 qof oo kurta kaga jiray واقرتي فرماجة إنه ما أنت بالبركة هلا إحنا حاسين ساعة لكن هلا جو فرماجة وحو بدله حسن شيخ فرماجة كهلا حسن شيخ مبدله إنه فرماجة ومدحويني سوماليا إنه فرماجة دلك كهلا ومدحويني سوماليا معلومة سوماليا بالحين وارن لكن حسن شيخ مركوها مدحوينها طبعا هشيسي هداد قشاني الرماها سوماليا يعني وهذا الكينا وكهذا جري بوسكينا فرماجة سوقلي هدول نكلا سوقلي لأنه وكهذا لها وحنكو لا ها فرماجة حسينك كهرلان دلك يجا وقالت أويا شيء قال أنا أبا يا شيء واقرتي هذا أنا وحبك قدر سنين وتكلم ما يحضلين بقى مدبنكو حسوسية ما أنت نوانو كجوانو ها إسكده بربرئة فرماجة كسماية كما هذلك كرو واقرتي بوساس كما هذلك هلك أيوك هذه مركز كما هذلك هلك أيوك هذه قدومية عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عرو وحسب معارض كودني قدومية ومشرح النواه قدومية أقل وكيلنا maalintii u dambeysay go'aanka guurtidu ay gaartay hadalkiisu wuxuu ahaa annaga nalama aqoonsan wali heshiis lama gaarin karno imaaraadka hadaynu la gaarno waxay ka dhigan tahay Soomaaliya oo heshiiska la gashay imaaraadka arintaas aad u aragtaa waa iska hadlay hada waa gudoomiyihii ogow gudoomiyaha waa aqligiisu ku hadlay gudoomiyaha midna ma hay waxay ku soo degiyay waa gartay waa ra'yi qalad u ahaa inuu dad aanu waxba ahayn isku empower gareeyana maanta Soomaaliya waxaas taagan oo sax oo practically taagan oo distoor leh oo madaxweyne la doortay oo wanfood leh oo hay'ad functioning leh oo dalkoodii ka shaqeynaya Soomaaliland baa jirta waa gartay markaad fiirido Faysal labada shacab aanu ka tagno siyaasiyiinta labada dhinac labada shacab waa dad isjecel waa labo walaalo ah waxa muranku mar walba ka dhex taagan yahay hogaamiyaasha Somaliland iyo hogaamiyaasha dawladda laakiin shacabka marka la yiraahdo eeg ninka jooga koonfurta aad u jecel yahay walaalkii waqooyiga jooga ama Somaliland jooga kan jooga Hargeysa kan Boorama jooga ka Berbera jooga ka Laascaanood jooga wuu jecel yahay ka jooga Baydhabo iyo Xardheere iyo Kismaayo taa muran kama taagna laakiin nimankiina siyaasadda ayaa culays ka wada imaka ma tagay raaga ma tagay Somaliland maydi Somaliland abaar bahaysa waxay shacabka sheegaysaa shacabka Soomaaliya na jecel waxay ku hayaan ma aragtay ninka raaga la yiraahdo لكن يجي أبغى شو مجال سوماليلاند كلمة سوماليلاند 1984 لأنه بحي تنكورس الصومالية أيا إنا رجال لو معه الصومالية يجونا استمتع على وقوة كلا سماسي دولة قبلها أنا جانا مش على هالك واحد يقول حاسين مدير طلب أوركرا أرين كلا جفته مركز حاسين مدير يرادو فيصل تصاري رام كسينا يا ما ندويتو waxaa jirtay in nin wariye ah dhinacana musaacadada ka shaqeeya oo ina coldoon oo Muqdisho ka yimid mar alla markuu ka soo degay Hargeysa waa la xiray anigu tooga leh aawad dimuqraadinimadi anigu haddaan ahay marka dawladda jecsan tahay war caruurtan yaryar oo ka koow yahay wixii dalkan loo soo maray iyo wixii farmaajo iyo qeyrkii ku sameeyay Soomaaliland laakiin wuxuu sameeyay isagu Muqdisho uu tagay wuxuu ka sheekeeyay wixii dhacay manaka farmaajo oo heesay haye heesto amaanto qaaday laakiin aawad dimuqraadiyadii oo ice ninka ice soo lama xir ice maya dimuqraadiyadii aawe ninkani waa nin dhalinyara waa nin Soomaaliya wuxuu saacidaa dadka soo halkan ma joogto xogaa waxay noqotay culays security waxay khatar ku haya waan xirina laakiin security waxa weeye anu horta ma aqaano haye laakiin ninkaas red line buu galay laakiin security-ga coldoon kuma aha dhibaato kuma aha markuu Muqdisho tagay magaalo Soomaaliyeed buu tagay markuu joogo Hargeysana waa magaalo Soomaaliyeed
waxaan ku xogaa waxaad moodaa halkaa culays inay tahay arrintaas Soomaaliya markay Soomaali noqonaysaa oo markaan is ogolaano oo inuu dal lahay laba dalno walaalanahay oo Djibouti nahay markaan is ogolaano ayuu tagi doonaa laakiin ninka maanta intuu tagi ka soo heesay farmaajo uu aqoonin historically oo waxa halkan nabadan uu haysto moodiyay inay ku timi uun isaal laakiin xogaa la weey waa nin wariya waa nin magac leh waa nin samadoona waa nin wanaagsan carruurta imka Ingiriisku ayar ma oga wixii markii dagaalkii labaad adduunka intii Ingiriis ka dhimatay iyo halka loo soo maray Europe maanta Europe ta qurux badan kuwa iyaguna way ilowsho dhooyino nolosha ku nool yihiin nabadgelyada maniga caalamka la nagu daala laakiin halagow cid koonfur ka tirsan oo shacaba oo duulahan ku ah nabadgelyada Soomaaliland anagu kuma hayno laakiin waa dhici kartaa nin siyaasi inuu hadlo ninka siyaasigaana siyaasadda dantiisa ka fiirsada laakiin hadda markaad fiirisay Hargeysa maalin dhaweeto rag dhalinyaro ayaa qalabka warbaahinta baraha bulshada soo galiyay inaan dhar buluga la xiran karin magaalooyinka anigu hadda haddaan Hargeysa tago anoo shaati buluga sita maxaa la igu sameeyaa kala buluga kale nagu dilay haye lama xiran karo anagu wadanka lama iman karo haye wuxuu waliba yiri haddaad cirka eegtid indhaha laga ridiyo heerka inay gaarto ma mid baa yiri haddaad cirka eegtid adoo Hargeysa jooga indhaha laga ridiyo arrintaas ka hor anigu bulu ma jeen laakiin calanka Soomaaliyeed horta xarjo asad kuma soo bixin waa gartay marayado nin sameeyay laakiin waxba idin ma dhiman calanku una dhimay eeg reer Somaliland ayaa baarlamaankii Soomaaliya ku jira reer Somaliland ayaa aqalkii sare maanta madax ka ah arrinta maxaad ku diidaysaa idinka waxa sameeynay dafnoolido idinka ay u yeedhay ninkii ina godana lahaa ya okay ilaahay fidmada kaga dhigay kuwana fidmad ku noqon doonaan laakiin taa ma hayna anagu wadaale kuwana fidmad ku noqon doonaano taa ma hayna dhigayso foodkiina imaka aad doonaysanaysaan iyagu waxba kama gelin kii ay nafto ka eegaan bi foodka siin doonaano laakiin waa rag waxa idin soo saari doonaan mid ay raali ka heen laakiin waa rag yaani aaminsan inay Soomaaliland yihiin ka soo jeedaan lamana inkiri karo oo adigu rag badan oo saaxiibaad ku leedahay waan leeyahay laakiin waxaad ogaataa in dan shakhsi geysay haddii Soomaaliya dhiganayso iyagoo dir waqooyi may tageen cadaaladu waa muraayadii dalka weey wuxuu wadamaas maanta ku fiican yihiin gaaladii waa cadaalad dhulkooda ugu hormariyeen cadaalad sameeyaan marka media timaado media wax noqdo extortion wala ku baadaya yara all of them ma laakiin waxa weeye ina yaro hadii ku caayaya oo ku israacaya oo inaan soo fariiso ku caayisa qoriya oo idid kareenin wixii yani de hoos la isku oran jiray leelgeeya Facebook leeganaya marka waxa weeye dawladuna waa inay iyaduna ay ogolaata in la kartaas gareeyo ka kartaaskan waa inaan xadka ka bixin oo isna de wax qabtaa jira de ma wax qabtaa ma jiro waa gartay ku yaro anay maalin kasta ay jiro muniriyada ma arag inta jeere munir la yiri aan madaxa ku soo dhufano aan ka qabtayna ma ka daaya ciida ka badan marka in qof kala shakhsi caayma waxa laga hadlayaa issues ba laga hadlayaa arrin ra'yi man keenaya ra'yigu caynka ma waa caynka waa in qofka yiraahdo laakiin Faysal Ali Waraabe caynka inuu shakhsi caayo daal la ogolaan maayo haddaan imka waliba la qaban arintana dadka maxaa la isku leeyay sheelad sana ka badan way inta Soomaaliland ay gooni u taagnay aqoonsina wali Soomaaliland ma helin intaana adinkii intaad Soomaaliya isu timaadeen wada hadaladii heshiis lagu ma gaarin dabcan inay sii socon doonaan Ilaahay un baa og nidaam cusub hadda iyo madaxweyne cusub baa yimid xaggaas adinka doorashadiina dib ay u dhacday maadaama aad 60kii timaadeen saad sheegtay la wada darsoomay heshiis iyo walaalo la ahaa kadibna la kala tagay haddii aad madaxweyne noqotaan adinkoo ah Somaliland oo Soomaaliya oo aad madaxweyne u noqotaan la yiraahdana koonfurta ama prime minister ha qaato ama gudoomiye baarlamaan xalka ka war anagu oo adinku aad hoggaanka qabataan oo aad talisaan anagu midaan ku sheegay anagu ma wax walaalnimo la isbarbariyay laba wadan aan noqono mase wax ka yar wax ka yar tan ogaan ma jirto waa gartay idina bari mayna Soomaaliya ma barina mantaqaanaysa gobolka madax banaanaanteeda shalaytana anaga keenay oo wanaag wadnay oo motivation baa jiro wuxuu ahaa in shan Soomaali isku keeno horaan waan u sheegay markaan ku sheegay anigu muusan ma soo doonan hableey ku diibanay xidhaan ma soo doonan anu toobi waxaan qaadan jiray dirac maanta waxaan aragnay khasaare meesha ku yimi xasuuq baa ku yimi isdil baa ku yimi dib u dhac baa ku yimi maanta shantii Soomaali inaga u liidana kila ka shanad baa aragtay
NFD baad aragtood ku tihiin qaxoonti ku yihiin reer Soomaali ku yihiin Jabuuti aragtoon baasaboorada barayna saarka mees anagu Soomaali dambe wax la yeelan mayno halka ayuu kaadi halka fadhiyo dantii guud dhulkeedii maxaa keenay in la iibiyo saddeq la iibiyo maan aragay maan aragay waxa weeye warkii ku jirtay horta aan ku waramay dawladan kulmiye iyo dawladii ku horeysay horta dhulka dawladda way iibiyeen waa gartay dawladuna ayaa siyaasadda u iibsay kulligeena ma baabiinayse in relocation wax la yiraahdo ayaa jirta haddii inta halkan iibiso ay ku aragteen ku yaraatay meel ka weyn oo neighborhood cusub samaysantay ay u samayso wixii kasta ee dawladda qabanayso dadku way ka soo horjeedaan waa gartay dadka reer Soomaaliland waa anti establishment baad marmoodaa inay xukunkaba aanay ogoleen oo doonayaan inay beelo isaga yaala ay noqdaan Soomaalida koonfureedna iyo NFD no Soomaaliya koonfureedna waxa isku mid yihiin kuwa Kenya sababtu maxay tahay dawaad shaarbaati soo matihid meeshii aad wax ku baratay canshuurta dadweynaha adoo 18 jira jaamacad aad ka baxday engineer aad noqotay mashruuci dhamaaya by project aad ka ahayd nin libaaxa arinta miyaad inkaraysaa waxaan ku yeelay in lacagta dakhliga Soomaaliya soo gali ama inkaraysaa arinta horta lacagta soo gali jirtay berberi ka soo gali jirtay waa gartay 10 milyan baa ka soo jiray muuska waa gartay jirteen waa gartay inta kale xoolaha inaga soo gali jirtay waa gartay waxna waxay adduunka magaca Soomaaliya inagu sii jiray xoolaha leedina aw engineernimada aw waxa qaybteeda ma ku soo koray Soomaaliland ma qaybteeda dawladda ay dirtay dhaqaalaheedu waxaan ku yiri Soomaaliland buu ka yimin jiray xooluha haye 10 milyan baa idinku keen jirteen oo muuska ahaa waa gartay 350 milyan wax laga keenay xoolaha oo berber ka dooli jiray idinka wada daal idin raacnay maanta isku darsanay 2 milyan pounds baa noo yaalay banka idinku zero baa haydeen ma dhici kartaa adigoo Faysal Cali Waraaba oo iminka xisbiga u cid oo mucaarada oo gudoomiye inaad Soomaaliya oo dhan ra'iisul wasaare ka noqoto mise madaxweyne ma dhici karto waxaan hawaar ismaxa ma dhici karto taasoo waa hawaar waa Soomaaliya hal waaye ilaahay ma keenay subxaanahu wa ta'ala ma keenay waa gartay halka ku jira waa hagaag gabagabadii maxaad soo jeedinaysaa waxaan ku soo yeeynaa Soomaaliya iska daa waqti iska luminayna haye danyarta meesha qabatana challenge badan baa hor yaala waa gartay priority yana ka dhigan Soomaaliya si loo undermine karaya waa gartay mudnaanta haasiyeen si dalkoodu hagaajin lahaayeen